Xogaye ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani Aftax Siciid Jaambir oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu eedeymo culus u soo jeediyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland isagoona sheegay inay wasaaraddu ku fashilantay shaqadii qaranku u igmaday. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay soo saareen warbixin ay ku sheegeen in tayada waxbarashada dugsiyada dawliga ay ka wanaagsan tahay tayada waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay ee private schoolska, iyagoo sheegay in kaalinta koowaad ay galeen ardayda ku nool goobaha miyiga, iyagoo warbixintooda ku sheegay inay 80% keeneen ardaydaas ardayda dugsiyada dawladda dhigatay ku nool goobaha magaalooyinkuna ay kaalinta labaad galeen, iyagoo ku qiimeeyay 70% inay siiyeen ay heleen. kaalinta ugu hooseysa waxay warbixintooda ku sheegeen inay galeen dugsiyada gaarka loo leeyahay, iyagoo qiimeynta ku siiyey 66%. inagoo ogsoon tayada waxbarashada guud ahaan dalkeena, inagoo ogsoon tayada waxbarashada dugsiyada dawliga ah, inagoo ogsoon inaanay helin macallimiinta dhigta dugsiyada dawladdu mushahar ku filan, ayay warbixintaas soo saareen wasaaradda waxbarashada. waxaynu ka wada warqabnaa in ubadkiinu ay dhigtaan dugsiyada gaarka loo leeyahay idinkoo qaranka uga mas-uula mushaharna ku qaataa waxbarashada iyo maamulidda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay. waxay ahayd inaydu warbixinta nala wadaagtaan markaydu ubadkiina iyo carruurtiina aad ku aamintaan dugsiyada dawladda, markaa waxay noqon lahayd wax wanaagsan. laakiin warbixintan waxaanu ka dhaleysanaynaa faan iyo fooladeyn aan meel loo soo marin. wasaaraddanu qaranka waxay ugu jirtaa boos weyn, waana wasaaraddii soo saaraysay ubaxa iyo hogaamiyaasha berri hogaamin doonta dalkan. laakiinse waxa ayaan daro ah inay wasaaraddii waxbarashadu la mid noqotay wasaaraddii warfaafinta ee lagu faafin jiray wararka been abuurka iyo propagandada. wasaaraddanu qaranka waa muhiim, waxaa loo baahan yahay inaan la geliyo juhd iyo dadaal. ardayda inoo soo baxaysaa waa ardayda mustaqbalkayna hogaamin doontaa, dalkan hogaamin doontaa. may ahayn in waxaan gasal yaraatoon aynu matala la wadaago. ta kale 4 bilood oo ugu dambeeyey ardaydu waxay adeegsanaysay oo isticmaalayeen aaladaha internetka. dee waxaynu ka warqabnaa inay wasaaradda lafteedu ay ka cabatay ardayda ku nool goobaha miyigu inaanay gaadhsiin karayn aqoontii waxbarashada oo ku baxaysay online. markaa waxaan kusoo gabagabeynayaa, haddaad rabtaan in ay waxbarashada dawligu ay tayo yeelato, ay ka sarreyso waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo waxbarashooyinka kale, aynu la tartamo wadamada jaarkeena, waa inaynu tayaynaa, tababarnaa, waqtina aynu gelinaa macallimiinta dugsiyada dhigaya. Axmed Maxamuud Dool, Dalsan TV, Hargeysa.